wardegdega muuqaalkani waxa uu ku tusinayaa hoteelka Al-Hayaat oo hal mar qura dhulka la simay fadlan dugso gaar muuqaalkeena fadlan muuqaalka la garay YouTube-keena subscribe noo saar wakaas halkaas si fiican u fiiriya waa hoteelkii oo hal mar qura wada qarxaya dagaalyahana ka tirsan Al-Shabaab ilaa hadda waxay ka dhex dagaalamayaan gudaha hoteelka ciidanka dowladda oo wali la daalacaya inay ka saaraan kooxda Al-Shabaab wili gudaha hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho waxa ka yeeraya rasaas xooggan oo u dhaxaysa koox shalay maqribadii weerar ku qaaday hoteelka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ciidamada ka tirsan laamaha ammaanka ayaa la tacaalaya sidii ay u soo afjari lahaayeen weerar ee koox ay ku qaadeen hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho howlgalkan qaatay saacado fara badan iyadoo ciidamada dawladdu ay la tacaalayaan sidii ay u soo afjari lahaayeen laamaha ammaanka saraakiil ka tirsan oo KNN la hadlay ayaa sheegay in laba nin oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay wili ku harsan yihiin gudaha hoteelka isla markaana ay ku tacaalayaan sidii ay u soo bixin lahaayeen rasaasta ee gudaha hoteelka laga maqlay ayayna sheegeen labada nin ee ka tirsan kooxdii meesha weerartay ciidamada dawladda dhaawac badan ayaa la geeyay isbitaalada Muqdisho iyadoo dad fara badan ay ku dhaceen weerarkan dadka dhaawacmay xalay weerarkan ku dhaawacmay waxa kamid ah yaha nabad sugidda gobolka Banaadir Muxudiin Warba wixii ku soo kordhay barnaamijyadeena dambe